kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba aad dunida ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan wararka caalamka kuwoodii ugu door korona qodobada daawadayaal aynu idinkugu hayno waxaa ka mid noqonaya Trump oo dib ugu asteeyay xuutiyiinta inay yihiin urur argagixiso. Trump oo hanjabaad u diray Putin iyo sidoo kale hanjabaadiisa oo looga soo jawaabay. waxaad kaloo maqli doontaan hadduu rabbi idmo Maxamed bin Salman oo markaasi ballanqaadkii ugu cuslaa sameeyay haddaba ayuu sameeyay barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan daawadayaal dib ugu bilowday markaasi Los Angeles. haddaba dabkaasi halkee ayuu ka bilowday barnaamijka ayaynu daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa. qodobadaasi qodobo kale oo aad u xasaasi ah ayaan barnaamijka daawadayaal idinkugu hayaa. haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, saaxiibadaadana la wadaag. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada wararkeena. haddii aynu ku bilowno markaasi dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa markaasi hambalyo u diray madaxweynaha Mareykanka ee markaasi ku soo laabtay kursiga aqalka cad isagoo telefoonka ay ku wada hadleen. waxa uu ballan qaaday markaasi boqortooyada in maalgashi iyo ganacsi ay la yeelan doonto Mareykanka. hogaamiyaha aan rasmiga ahayn ee Sacuudiga ayaa markaasi waxa salaan ay ka timid aabihiis boqor Salman u gudbiyay markaasi Trump intii lagu jiray hadalka qadka telefoonka oo labada dhinac ay ku wada hadlayeen. dhaxal sugaha ayaa intaa ku dar markaa in boqortooyada ay ballaari doonto maalgashigeeda ganacsigeeda ku aadan Mareykanka oo ay gaarsiin doonto ilaa iyo 600 bilyan oo dollar muddo 4 sano laga yaabo in intaa ka badnaato. dhanka kale wada hadallo dhinaca telefoonka oo isna ay la yeesheen dhaxal sugaha iyo xogayaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa waxa markaasi ay ka wada hadleen arrimaha Suuriya, Lubnaan, Gaza iyo khatarta ka imaanaysa Iran iyo kuwa raacsan sida lagu sheegay bayaan. waxay sidoo kale ka wada hadleen faa'iidooyinka iskaashiga dhaqaale ee Mareykanka iyo Sacuudiga iyo fursadaha ay ku kobcin karaan dhaqaalahooda marka dhinacyada kala duwan oo ay ka mid tahay AI-da. inta lagu guda jiray markii maamulkii hore Trump waxa markaasi Sacuudiga iyo Trump ay hayeen saaxiibo aad u dhow oo in badan maalgashi markaasi ku sameeyay Sacuudiga. sidoo kalena waxyaabo badan ay ku kala bedesheen oo ay ka mid tahay markaasi in shirkadda uu leeyahay Donald Trump ay markaa maalgashi ay ka hesay Riyadh. haddaba iyagana waxyaabaha kasoo kordha barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa markaa ku goodiyay inuu canshuuro badan iyo cunaqabateyn dheeri ah ku soo rogi doono Ruushka haddii Vladimir Putin uu ku guuldareysto inuu soo afjaro dagaalka Ukraine. isagoo wax ku qoraya bartiisa bulshada ee Truth Social ayaa waxa uu sheegay inuu dadaal ku bixinayo dagaalka in la dhameeyo ayuu yiri si markaasi Ruushka iyo labada dowladoodba ay u nabadgalaan. Trump ayaa hore u sheegay in markaa uu kala xaajin doono Ruushka inuu dhameeyo duulaanka buuxa ee Ruushka ee Ukraine kaasi oo markaasi bilowday Febraayo 2022. Ruushka ayaa weli ka jawaabin hadalkaasi balse saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan Ruushka ayaa markaasi sheegay inay jirto fursad yar oo Moscow markaa ay kula macaamili karto maamulka cusub ee Mareykanka. Putin ayaa marar badan sheegay markaasi inuu diyaar u yahay wada xaajood lagu dhameynayo dagaalka oo markii hore bilowday sanadii 2014 balse ay Ukraine markaasi ku qasbanaatay inay aqbasho xaqiiqada dhabta ah ee dhulka Ruushka oo hadda qiyaastii 20% uu haysto markaa ka haysto Ukraine. waxaana kala diiday in markaa Ukraine ku biirto NATO. waana arinta ugu weyn ee markaasi haatan taagan iyadoo markaa Ukraine ay dalbatay ciidamo nabad ilaalina. dhinacaas iyo dalka Yemen haddii aynu aadno madaxweynaha Mareykanka ayaa markaa xuutiyiinta Yemen u magacaabay urur argagixiso. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta waxa ay khatar ku yihiin ayuu yiri ammaanka rayidka iyo shaqaalaha Mareykanka ee bariga dhexe ku sugan, badqabka saaxiibada gobolka ku sugan iyo sidoo kale xasiloonida ganacsiga badaha caalamiga ayaa lagu yiri amarka markaa fulinta ay ka soo baxay Donald Trump. hay'adda gargaarka u qaabilsan ee markaasi magaceeda loo soo gaabiyo USD ayaa waxa markaasi ay xiriirka u jirtay kooxdani iyo kuwa kale hay'adaha kuwaas oo markaasi lagu dhaleeceeyay in ay lacag iyo sidoo kale garab istaag u muujiyaan kooxdan. madaxweynihii hore John Biden ayaa ka saaray liiska argagixisada sanadkii 2021 isagoo sabab uga dhigay baahida loo qabo in la yareeyo mid ka mid ah xasaradaha bini'aadantinimo ee ugu xun adduunka.
dalka Yemen ayaa waxaa halakeeyay dagaalo sokeeyo oo sii xogeystay kaas oo bilowday 10 sano ka hor markii Xuutiyiinta ay kala wareegeen gacan ku haynta waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Dowladda caalamka aqoonsaya waxaana soo faragelisay xulafada Sacuudiga oo hogaaminayo Mareykanka taageero. dhinacaasi Los Angelesna dab cusub ayaa ka kacay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka kaasi oo ku qasbay kumanaan qof inay u barakacaan goob ammaan ah. dabka ayaa ka bilowday meel u dhow halka lagu magacaabo Cassetic Lake oo waqooyiga galbeed Los Angeles ah waxaana si degdeg ah markaasi ugu fiday aag hor leh saacado gudahooda. dabeelo iyo markaasi caleemo qalalan ayaa dabka sii horiyay balse ma jiraan guryo iyo goobo ganacsi oo waxyeelo ay soo gaartay waxaana saraakiisha dabdamiska hirajo ka muujiyeen in ay xakameyn doonaan. ku dhawaad 31,000 oo qof ayaa la amray markaa in la daadguray iyadoo 23 qof kalena looga digay inay ka baxaan amaba ay ka tagaan guryahooda si markaa deegaano kale ay u tagaan. xabsi ku dhow goobta uu dabka ka kacay ayaa laga daadgureeyay ilaa 500 oo maxaabiis ah. daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa wararka caalamka. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada haddii aad soo gaartay qaybtan dambe.